kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka halka aad naga daawanaysaan waa janalka xogta dhacdooyinka qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xildhibaanada beesha Murusade ayaa la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lagu qanciyay in Xasan Macalin uu ku matalo golaha wasiirada xog cusub oo idinkaga hayno ayaa daawan doontaan saaxiibayaal madaxweyne Laftigreen oo qoys taagan kadib markii xisbi ka soo horjeeda looga dhawaaqay magaalada Muqdisho talaabada uu qorsheynayo ayaan idin soo gudbin doonaa halkee ayay maraysaa ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya sidoo kale qodobkaasi waa daawan doontaan China waxay hanjabaad culus hawada u marisay Mareykanka maxay tahay sababtu waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobadaas ayaa daawan doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka haddii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysay aadna daawanayso fadlan channelka subscribe inoo saar sii share garay oo gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkaan soo galino aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay xildhibaanada beesha Murusade ee habeen ka hor ka baaqsaday kulankii xildhibaanada laga soo doorto dowlad goboleedka Galmudug sida aan ogaanay xildhibaanada beesha Murusade ayaa horay u saluugsana xulashada madaxweynaha ee xubinta golaha wasiirada ee ku meteli doona beeshaasi oo Xasan Macalin oo sida markaasi ay sheegeen aan lagala tashanin hase yeeshee kulanka maanta ayaa meesha looga saaray saluugaasi ayada oo la soo warinayo inuu isafgarad ku soo dhamaaday kulankaasi kulankan ayaa waxaa qayb ka ahaa xildhibaan hore Xasan Macalin oo lagu wado in uu ka mid noqdo golaha wasiirada cusub ee la magacaabi doono ahna qofkii diidmada ay ka timid markii hore ujeedka kulankan iyo kuwa la midka ahaa ee maalmihii dambe uu xildhibaanada la yeelanayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidii xildhibaanada loogu qancin lahaa golaha wasiirada la soo magacaabayo oo codkooda kalsoonida ay u siin lahaayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa laga soo xigtay in ay socoto qabanqabadii ugu dambeysay ee munaasabada la filayo in looga dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ay suurtagal tahay in wasiirada la shaaciyo caawa halka kuwa kalena ay sheegayaan in ay dhici karto biri subax xafiiska Xamse waxa uu diiday in uu sheego waqtiga rasmiga ah ee ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed ayaa si weyn isha ugu haya liiska la shaacinayo ayada oo la filayo in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada siyaasiyiin qaarkood aan xildhibaano ahayn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya xilli ay muddo yar uga harsan tahay waqtigii golaha shacabku ay u siiyeen in uu ku soo magacaabo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa laga soo xigtay in ay socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabada la filayo in looga dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in wasiirada la shaaciyo caawa halka kuwa kalena ay sheegayaan in ay dhici karto biri subax xafiiska Xamse waa uu diiday in uu sheego waqtiga rasmiga ah ee ku dhawaaqista golaha wasiirada dadweynaha Soomaaliyeed ayaa si weyn waxa ay isha ugu hayaan liiska la shaacinayo ayada oo la filayo in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada siyaasiyiin qaarkood aan xildhibaano ahayn arrintan ayaa imaanaysa ayada oo soo gabagaboon doonto wada hadaladii ugu dambeeyay ee madaxda sare ee dalku ay ka yeelanayaan dhismaha xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha ayaa muddooyinkii u dambeeyay kulamo la qaadanayay waxgaradka siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada oo kala hadlayo xukuumadda cusub ee lagu wado in la soo dhiso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale soo afmeeray kulamadii ugu dambeeyay ee lagu soo dhisi lahaa xukuumadda cusub ee la wareegaysa talada dalka ayada oo liiska goordhow lagu dhawaaqi doono dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku dhawaaqay in wada hadal nabadeed uu la yeelanayo siyaasiyiin ka soo jeeda maamulkiisa ee ay isku hayaan hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wada hadal xilligaani dhex mara Laftigreen iyo siyaasiyiinta miisaanka culus ee reer Koonfur Galbeed ayaa waxaa la fahamsan yahay in uu wax uun ka tari doono xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulkaasi Laftigreen ayaa ballan qaad markaasi ku wargeliyay ergeyga gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan
oo markaasi kula kulmay magaalada Baydhabo. waxaa soo dhaweynaynaa ballanqaadkii uu sameeyay madaxweyne Cabdulcasiis ee ahaa in isaga iyo siyaasiyiinta kale ee miisaanka leh ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay wada hadallo nabadeed ku xallin doonaan wixii khilaaf ah ee u dhaxeeya ayuu yiri JMC1. waxaa muhiim ah in khilaafaadka siyaasadeed lagu dhameeyo wada hadal iyo sidoo kale xuriyatul qowlka la xaqiijiyo sida uu dhigayo dastuurka ku-meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ayuu hadalkiisa sii raaciyay JMC1. ballanqaadka Laftagareen ayaa imaanaya xilli ay siyaasiyiinta ka soo horjeeda ay ku dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo loogu magac daray golaha samata bixinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. isbahaysigan ayaa waxaa ku midaysan siyaasiyiin reer Koonfur Galbeed ah oo u badan madax hore, xildhibaano, wasiiro, siyaasiyiin kale iyo dhalinyaro kuwaas oo dhammaantood ka soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed. xubnaha ka soo muuqday isbahaysigan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muudey, wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniife Xaabsade iyo xubno kale. golahan ayaa si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo horey siyaasiyiintan ugu adeegsaday awoodiisa kana reebay tartankii doorashada baarlamaanka Soomaaliya. ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in militarigeedu aysan ka fadhin doonin ayaga oo markaasi aan tallaabo qaadin haddii afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato Taiwan. digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shao Lijian oo shir jaraa'id qabtay. Master Shao ayaa waxa uu sheegay in maadaama Nancy Pelosi ay tahay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya dowladda Mareykanka isla markaana booqasho ay ku tagto Taiwan oo China ay sheegato in ay ka tirsan tahay ay noqon doonto faragelin weyn oo lagu sameeyo arrimaha gudaha China. waxa uu ka digay in taasi ay hogaamin doonto cawaaqib iyo xaalad cusub oo daran. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa maanta Singapore ka bilaabay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan Aasiya, waxaana jirta suurtagalnimada ah inay booqan karto Taiwan. China waxa ay xaqiiqdii qaadi doontaa tallaabooyin adag oo jawaab ah si ay u difaacdo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda dhuleed. marka ay noqoto waxa ay noqon kartaa tallaabooyinkaasi haddii ay ku dhiirato in ay tagto Taiwan. markaas aynu sugno oo booqashada markaasi suurtagalka ah ee Pelosi oo weli uusan xaqiijin xafiiskeeda ayaa xiisad markaasi kicisay maamulka Biden oo ka cabsi qaba in safarka uu ka gudbo khadka cas ee Shiinaha. toddobaadkii tagay Master Biden ayaa waxa uu sheegay in militariga Mareykanku ay rumaysan yihiin in booqashadu aysan ahayn fikrad wanaagsan xilligan. Taiwan ayaa waxa ay si joogto ah ugu nooshahay hanjabaad ah in ay awood militari ku qabsan karto China oo u aragta qayb ka mid ah dhulkeeda. Nancy Pelosi ayaa toddobaadkii tagay wariyaasha u sheegtay in ay muhiim tahay in ay taageerto ama taageero u muujiso Taiwan, balse waxa ay beenisay in Koongareesku uu isku dayayo in uu dal madax bannaan u aqoonsado jasiiradaasi. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen janalka xogta dhacdooyinka waa naga intaa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan janalka subscribe inoo saar, siina share garay oo markaasi gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino.